muuqaalkani dareenkiisu aad ayuu u xanuun badan yahay. waxaa muhiim ah in wax badan la hubsado nolosha uu ardaygu ku nool yahay iyo waxyaalaha ugu wacan dib u dhaciisa, sababtoo ah ma sina nolosha qoysaska. qoysba si bay dhibaato u haysataa, lama oran karo waa la wada siman yahay. fiidiyogan wax badan buu dareenkaaga ka bedeli doonaa. yaa garaacay albaabka, ma adiga kaalay halkaan soo istaag. waryaa basaam, halkay ku soo habsantay? yaa ii sheeg. keen gacanta soo taag. orodoo fadhiiso, soco. mar kalena isku soo daahin. waa kuma wax loo garaacaya? macallin waa basaam. soo dhaaf. halkee ku soo daahday? macallin xaafadda ayaan ku soo yara habsaamay. waayay taag gacanta taag. orod fadhiiso. waa kuma waxa loo garaacaya? waa aniga. soo gudub. adiga maalin ma soo dahaysaa? kaalay taag gacanta. orod fadhiiso, soco. allah adduunyada dhib badanaa, aniga ilaa goormeysaan ku jiri doonaa. yaa waxaa halkaa maraya ma basaama? ardaygii maalin walba aan garaaci jiray ma asaga? allah xanuun badanaa noloshu. war maan ogeyn ka waran waxaan u garaaci jira. waan ka qaldanaa ninkaan. dhib badanaa. ilan walaalkii buu maalin kasta ku soo daahi jiray caawinta uu caawinayo. waa ka xumahay, aad ayaan uga xumahay. waa inaan raaligelin ka bixiyaa, waa inaan ardaygaas raaligeliyaa. maalin walba waqtigan oo kale u imaan jiray, waa isla waqtigii. berri waa inaan raaligeliyaa. garaac sida caadada ay ahayd. maya ma ahan maanta inaa aniga ku garaaco. hoo adiga garaac, waayo aniga dambiile ah. igaraac. hoo igaraac maanta. sidee? igaraar noqo. ardaygii qaaliga ahaayo rarbin aan bixinayaa maanta aniga. bas maalin kale ma dhacayso arrintaan. iska kee cafi.